arrinta ku aadan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ayaan u bandhignay qaar ka mid ah akhristayaasheenna iyo daawadayaasheenna barteena youtube-ka iyo sidoo kale barteena facebooka si ay ayagana aragtidooda ay kaga soo dhiibtaan arrinta la xiriirta cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax aragtidaasi waxaa soo dhiibtay dadweyne aad u fara badan waxaan akhrin doonaa aragtiyada kala duwan ay soo dhiibteen dadka iyaga oo haddaba aad u jeedaan hab qoraaleedka aan u soo bandhignay sawirka cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax iyo aragtiyada dadka ay soo dhiibteen oo dhanka midig idinkaga muuqanaysa aan ku hormarno shaafici ibraahim ayaa noqday qofkii ugu horreeyey arintadaasi fikradiisa kasoo dhiibta maalin ka hor waxaana uu yidhi walaalkan cabdikariin sheekh muuse dhibtiisu waa fal aad u xun oo guracan waxaana taasi aan kasii xun buu yidhi xadgudubka dhanka afka ah ee loo geysanayo waxyaabihii ay ku hadaaqeen wax magaraadku waxaana ka mid ahaa buu yidhi isagoo rabay in Ethiopia uu la hadlo haddaba maxaa loola jeedaa inkastoo aanan sii dhammaystirin qaybta fikradaha maadaama dad aad u badan ay jireen shaafici waan kaga mahadcelinaynaa fikradiisa fikradda kale buraale maxamed Colombe ayaa soo dhibtay wuxuu leeyahay anigu marnaba ma taageersanay in qof loo gacan geliyo cadawgiisa xitaa haddii uu adiga cadow uu ku ahaa hase yeeshee waxaan isweydiiyey ninkani ma ururka ONLF mareernimo ayuu ula dagaalamayaa Ethiopia mise qarannimo waxa jirtay hadallo kale oo soo dhiibtay buraale laakiin waqtiga oo inahaya iyo dad badan oo fikrado soo dhiibtay awgeed ayaan intaa ku soo koobnay waan u mahadcelinaynaa buraale dhageystaha kale ama akhristaha kale wuxuu yiri assalaamu calaykum magacaygu waa Axmed Najiib Xasan taladeedu waxa ay tahay tala ayuu soo dhiibtay taladeedu waxay tahay Soomaalida horto ha iska adkeeyaan buu yiri ama ha isdaayaano iska daayaano salfudeydka aan loo fiirsan qaranka ayaa sanad jirsan buu leeyahay yaan la burburinin hal nin ooba xaalad kale ku dhex jira ee lala baxay dabcan dawladda waa in ay shacabkeeda qancisaa waxa ay ka tabanayaan ay ka qancisaa fikradaha kale waxaa soo dhiibtay Maxamed Cali Ciise wuxuu yiri waa arrin siyaasad fog laga dan leeyahay mar Soomaalida ha isdejiso waxaan xasuustaa arrinkii safiirkii Ruushka ee lagu dilay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ee ninka booliiska ahaa ee ku toogtay iyo sida Ruushka ugu falceliyay si deganaan leh waa marka qofka muwaadinka in cadawgiisa si bareera loogu dhiibo arrin mudan in lagu xisaabtamo cidii mas'uulka ka ahayd ee ugu dambeyn aan deganaan ku wajahna arrimahan oo kale waan u mahadcelinaynaa akhristaha kale wuxuu yiri walaal cabdikariin sheekh muuse in la dhiibo arrin xun kumana aanan faraxsanahay hase yeeshee Soomaalidu waxay ku mahmaadaa say wax u dhaceen lama dhahe sidee bay wax loo qabtaa ayaa la dhahaa Soomaalidu waxaan kula dardaarmayaa deganaan iyo midnimo dawladda aan laga hordhicin lagana warsugo arrinta cabdikariin jawaabo cad ay ka heli doonaa insha Allah mar dhow ayuu yiri akhristahaasi Maxamed Axmed Dool هاشم علي نور wuxuu yiri arrinta ku saabsan bixinta ay dawladda Soomaaliya dawladda Ethiopia ku wareejisay walaalkeen qalbi dhagax waa arrin aad looga xumaado run ahaantii dareenkayga kicisay dawladdeena waxaan u sheegayaa inaanan ahayn dad iyo dal beeca waynana khiyaaneen in muwaadiniin Soomaaliyeed loo gacan geliyo dawladaha shisheeye waa khiyaano qaran ayuu yiri Hashim Cali Nuur waa aragtidiisa aragtida kale ahana liita loo fooyo macaan ayay ku soo gashaa waxaana ay tiri waxaan u sheegayaa madaxda in hamiga iyo hiigsigii aan lahayn uu dhintay maanta cid aan aamini doono maanta wixii ka dambeeyana ma jirto ay dir waxaan u maleynayaa inay jirto fikrad kale maadaama mid kale waxaan u sheegayaa ay raacisay aan eegno Cabdiqaadir Siyaad Dirir wuxuu leeyahay anigu waxaan u arkaa inay tahay dabin ay ka soo shaqeeyeen cadawga ummadda Soomaaliyeed oo ay rabaan in dawladda iyo shacabka ay kala kaxeeyaan ama ay isnaacsiiyaan waxaan kula talin lahaa arrintaasi waa la inagu gaaday ayaanan la isku sii mashquulin oo waqti la isaga qaadin aragtidiisa uu ku mahadsan yahay aragtida kale Faarax Khaliif wuxuu yiri sheekada qalbi dhagax halkaas nooga ekaato naga daaya ku cilcelinteeda aragtida kale waxa dhiibtay mas'uul Maxamed ayuu ku soo galay wuxuu yiri ninkani waa nabadiid wuxuuna ka xumaa horumarka DDSI qalbi dhagax wuxuu ka mid yahay ururka UBO DDSI looga yaqaano waxaana wixii uu ka xun yahay buu yiri horumarka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa aragtidiisa meel walba ha joogo ha ogaado sida qalbi dhagax ayaa loo qaban doonaa ayuu aragtidiisa ku yiri ninka ku soo galay mas'uul Maxamed aragtida kale waxa dhiibtay Afrax Sheekh aniga waxay ila tahay inaan aaminaa oo aan ku kalsoonaanaa dawladdeena iyo madaxdeena qofkeenii dhiban iyo keenii kalaba ee faraxsan intaba ayada mas'uul u ah ayuu dawladda Soomaaliya shaqadeeduna ay tahay
khaalid cawad wuxuu yidhi soomaaliya farmaajo iyo khayre wax idinka dhaama garan maayo dowlad deegaanka soomaalida ee kuwa cadowga ay intaana isku mashquulinin dantiina garta ayuu yidhi zahra cumar khays waxay tiri mas-uul maxamed ay u jawaabeysay oo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya sheegay in uu loo gacan geliyay qalbi dhagax waxay tiri wadaniga ubo waa noo sheeg sharciga baneeyay in ubo iyo gaal loo dhiibo noo sheeg teeda kale ubo soomaali xaq u dirir ma aha miya raggeenii badanaa waa caada qaate waxaana meesha na dhigay cadowga noo baylahay ayay tiri waxaan filaya aragtideeda inay jawaab u ahayd mas-uul maxamed oo hore u sheegay in qalbi dhagax loo gacan geliyay oo kasoo horjeeda horumarka dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya sahre cumar qays way soo laabatay waxay tiri waxaan ku talin lahaa in farmaajo in uu soo celiyo cabdikariin waa haddii uu maxkamad uu ka badbaado hadduu rabo haddii kale soomaali buu ku sasaban inta dhiigga leh ha u istaagaan cabdikariin maalkoodana ha u huraan ayay aragti ahaan kusoo koobtay aragtiyada ugu dambeeya waxaa soo dhiibtay maxamuud siciid bukhaari qalbi dhagax waa muwaadin ethoobiyaana waana iska caadi haddii dalkiisii iyo dadkiisii loo celiyo dembigii ummadda ka galayna jawaabtooda keena maxaa yeelay malaayiin ganacsata ayuu wuxuu leeyahay gawaadhidoodii gubay ayuu kusoo koobay waa aragtidiisa axmed cadaan cigale wuxuu yidhi walaalkeen allaha ka soo fujiyay cadowga kuwa u dhiibayna cadowga ayaysan noo sheegin inay muwaadiniin yihiin laakiin waa lagula xisaabtamaya waqtigeeda waxaa lasoo saarayaa maxkamad laakiin waxaan ku talin lahaa in jagada loo dhiibay ay ka degaan ilayn uma qalmaan ayuu aragtidiisa kusoo koobay hanaliita ayaa soo laabatay waxay tiri waxaan u arkaa taas inay ahayd mid basaas ay khiyaano ahayd waxaan ku talin lahaa in wadanigaasi dadkii dhiibay ay soo badbaadiyaan sababtoo ah tani waxay tusaale u tahay dhammaan dhallinyarada wadanka jecel in ay ka niyad jabaan taasna waxay horseedi u noqon doontaa bay tiri soomaaliya in ay kala qaybsanaato marka midnimada waa muhiim noo wada ah ayay tiri aragtida ugu dambeysa farxiye siciid cumar qalbi dhagax haddii lagu qaldamay ma qaldame waa allah hal qofna wadanka yaana loo qasin bay leedahay dowladdu intee bay qabatay oo ka qaalisan qalbi dhagax ayaan la niyad jabin lagana qalbi jabinin madaxdeena ayay kusoo koobtay waa aragtiyadii ay soo dhiibteen qaar ka mid ah akhristayaasheena aragtiyada kale maxamed sayid cali dowladnimada soomaaliya iyo kala dambeynta ayaa ka weyn shakhsi aan wuxuu leeyahay in arrintaasi loo babac dhigaa jamaal dacar wuxuu leeyahay waxa weeye qalbi dhagax wuxuu yahay asal ahaan isweydiiya qalbi dhagax waa nin nabadiidka ah oo kasoo horjeeda horumarka iyo hanan u socodka dadka soomaalida ha ahaato laakiin soomaaliya ethoobiyan gaal iyo islaam nabadda waa lagu wada nool yahay ayuu yiri jamaal dacar garaad cabdikariin maskaro ama macsar aan yiraahday wuxuu yiri waa wax laga xumaado oo laga naxo in qof islaam ah aynu walaalo nahay in loo dhiibo cadow maxamuud cabdi ina mira yeelkii ayuu kusoo koobay suleymaan maxamed cali wuxuu yidhi maxbuus maaha dadka yaan la khaldin shariifka yaangi khansoy ninka ugu qorantaan wuxuu yidhi ha la soo daayo qalbi dhagax ama free qalbi dhagax fikradihii ay noo soo direen qaar ka mid ah akhristayaasheenna iyo daawadayaasheena barteena youtube-ka ayay kuwaasi ahaayeen waan u mahadcelinaynaa dhammaan akhristayaasheenna aragtiyadaasi kala duwan halkaasi kusoo qoray iyo kuwa daawadayaasha ah ee barta youtube-ka fikradaha inoogu reebay waan idin sii shaqayn doonaa hadduu raalli ka noqdo ha ilmaamin mar walba fadlan inaad subscribe garayso barteena youtube-ka si aad u hesho muuqaaladii ugu dambeeyay ee gudaha dalkaada hooyo iyo caalamkaba mahadsanid